Nicholas Kay, Ambassador Nicholas Kay, oo ah qaybsanaha Ban Ki-moon ama xogayaha guud ee qaramada midoobay Somaliland iyo Soomaaliya waa markii labaad halkan yimaado muddo sanad iyo bil baa ka soo reegtay markii ugu horeysay halkan yimi sida ogtihiin xafiiskan ANSOM la yiraahdo wuxuu leeyahay laba qaybood qayb political iyo qayb ah humanitarian ama binaadamnimada ayuu qaabilsan yahay labada qaybood buu ka kooban yahay sadarteed inagu mar walba waan ka tirsanahay xafiisadan Hargeysa jooga ee uu isagu maamulo qayb waxa haysata ku xigeenadiisa waxa kamid ah Philip Lasaran oo qaybta haysta qaybta binaadamnimo iyo Sureer oo qaybta siyaasadda haysata marka sadarteed waynu ku jirnaa mar walba labada qaybood ee maamulo inagu qaybtan xoogga wada shaqeynayna bariyahan dambe waxay ahayd qaybtan humanitarian ama qaybta binaadamnimada oo Philip Lasaran ninka la yiraahdo oo xigeenkiisa ay uu aad uga shaqeyn jiray shirarkeenu qabanno oo dhan oo kii ugu dambeeyay kii caawimooyinka isku dubridka caawimooyinka ee lagu qabtay ambassador sadarteed waxaynu markaa rajaynaynaa insha Allah inaynu wada shaqeynteena iyo inaga iyo Ambassador Nicholas Kay inaynu sii wanaajino aynu sii horumarino waxyaabaha aynu isla fahmi lahaynayna aynu meel fiican ku tiirno xilligan oo insha Allah marka uu inaga noqon doono inagoo isfaham wanaagsan ka gaarno Thank you very much, Minister. It's a great pleasure to be back again in Somaliland. I've arrived safely this morning from Garowe, and I will be staying at least a day in Hargeisa, and I look forward to meeting His Excellency President Silanyo and also many of the ministers in the government. I'm the head of the UN family, as the Vice Minister said, so it's also a chance for me to meet and see the work that the whole UN family is doing in Somaliland to support the people of Somaliland for better peace, stability and prosperity. Thank you. Thank you very much.